garoonka diyaaradaha ee loo yaqaano Aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci ee magaalada Roma caasimadda Talyaaniga ayaa maanta waxaa kasoo degay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdigu hogaaminayo. wafdigu si caadi ah waxaa garoonka diyaaradda kusoo dhaweeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga ee Midowga Yurub Dr. Nur Xasan Xuseen Nur Cadde iyo mas'uuliyiin ka socota safaaradda iyo qunsulka Soomaaliyeed ee dalka Talyaaniga. soo dhaweynta wafdigu waxaa qayboyin ka qaateen saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. wafdigu waxaa lagu soo dhaweeyay hoolka ku yaalo gudaha garoonka diyaaradda Aeroporto Leonardo da Vinci. hoolkaas loogu talagalay martale sharafta ka soo degta garoonkan caalamiga ah. kadibna waxay u gudbi doonaan hotelka loogu talagalay ee ku yaala gudaha magaalada Roma. Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdigiisa waxaa la sheegay in birsuuxdii hore ay la kulmi doonaan gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Talyaaniga mudane Gianfranco Fini. mudane gudoomiye markii hore waxaan ku soo dhaweynaa telefishinka Universal iyo Roma. waxaan jeclahay in wax noo sheegtay socdaalka soo gaaray Talyaaniga ma uu ku saabsan yahay. bismillaahir rahmaanir rahiim socdaalkeen aan ku soo gaarnay dowladda Talyaaniga oo aan ka helnay martiqaad dowladda Talyaaniga iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliya shacabka Talyaaniga oo ka dhaxay xiriir soo jireena in labada dowladood iyo labada shacab si hoos kula qabsan lahaayeen gaar ahaan labada baarlamaan in nagala kaameeyo baarlamaanka kabaasi bildinkiisa iyo guriga baarlamaanka naftiisa dib u dhiskiisa ama dayactirkiisa iyo xafiisyadiisa in nagala kaalmeeyo inaan dowladda Talyaaniga aan weydiisano gaar ahaan baarlamaanka aan socnaa. wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga waxaan ka helnay in birsuuxdii galanka hore la kulmaysid gudoomiyaha baarlamaanka Gianfranco Fini. waxay horumari kartaa gulankii wuxuu ku saabsan yahay. anaga kulli wax kasta oo sidii xiriirka loo wanaajin lahaa oo dowladda Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaatooyin badan ku jiray iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaato ku jirtay abaar iyo rafaad iyo dagaalo iyo qolo dowladdiida ay dhibaato ku hayeen dowladda Talyaaniga oo Soomaaliya gaar ahaan saaxiib la ah inay wixii ay ka qaban karto wax ka qabato iyo abaaraha iyo dhibaatada waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkoodii hore ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed kaalmada soo jireenka ay siin jireen hadday tahay dhinaca bani aadamnimada hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo dhinac kastaba haddana waxaan rabnaa inay kaalmadii ay sii laabaan shacabka Talyaaniga iyo shacabka Soomaaliya waa laba shacab oo aad iyo aad xiriir soo jireena u leh marka maadaama shacabkii Soomaaliyeed dhibaatooyin abaar iyo macluul iyo dhibaato badan ku dhacday inaan kala hadalnaa rabnaa oo aan idhaahno wax qabadka qabateen waa ku mahadsantihiin haddana waxaan ka rabnaa wax qabad kale iyo sidii ummadda Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa qarannimada iyo sharafta loo soo celin lahaa dowlad lugaheeda ku taagan shacabkeeda u daneyso oo dalkii wada xukunto dalkii ka wada adeegto sidii loo heli lahaa inaan taladeeda aan u socono. aad u mahadsantahay sheekh wanaagsan ugu soo dhawaad Roma.